سعد بن أبي وقاص وحوها رجي وهرية إسلامك كحاد وير أيانا وهرسي سعد إسلامي ماذا سعد دادي سوحة يهيد مركو إسلامي تدبي 10 سنة وحكالو لها وحاوها 19 سنة سيدا أيتهين سعد وحبضا أيو أقبت إسلامك إمام بخاري كتاب كيسا وحا وقصه أرورية إنو سعد يلي قف ما إسلام مركان دمعين الإسلام لكن ما إينو قنين waxaa noqday qofkii saddexaad ama afraad oo islaamka qaata muddada 7 maalmood sababta uu islaamay waxay ahayd ayaa la yiri Sacad waxa uu riyo ku arkay riyo ku booranaysa islaamka gabadhiisa Aisha bint Sacad bin Abi Waqaas waxay leedahay waxaan maqlay aabahay oo leh inta aanan islaamin waxaan riyo ku arkay anigoo jooga meel aad mugdi ah oo aanan waxba aan arki kareynin indhahayguna ayna waxba qabanaynin kadib waxa ii imaaday dayax markaas baan raacay dayaxii mise waxaad moodaaba in aan u jeedo dad iiga horumaray dayaxaas markaas baan fiiriyay mise waa Zayd bin Harith Ali bin Abi Talib iyo Abu Bakar kulligood Allah ka raali noqday markaas baan weydiiyay waxaan aan u soconnaa kadib ayaan waxaan maqlay soo gaadhay in rasuulka Ilaahay sallallahu alayhi wasallam uu ugu yeeray dadka islaamnimada xaqiisa si qarsoodi ah markaas buu la kulmay nabiga sallallahu alayhi wasallam xaafad kamid xaafadihii hore ee Makka oo la oran jiray Abjad markaas baan ku yiri maxad ugu yeeraysaa dadka Maxamedow markaas buu yiri sallallahu alayhi wasallam inaad qirto in Ilaahay mooye Allah kala jirin aniguna aan ahay rasuulkiisa markaas baan ashaahaday cidina igama horeeyay diinta illa ragaas aan soo sheegay mooye Sa'd bin Abi Waqqas waxa uu ahaa mid kamid ah ama la yaqaanay baarinimada waalidkiisa magaalada Makka wuxuuna tusaale u ahaa qof baari ah markii la yiraahdo magaalada Makka markii uu islaamay Sacad soona ifbaxda islaamnimadiisa ayaa waxa maqashay hooyadiis Hamnata bint Abi Sufyaan bin Umayyah markaas ahayd gaal ayaa aad u carootay inuu islaam waxaana ku tiriyaa Sacad waxaan maqlay inaad gashay diinta islaamka ee Maxamedka cusub markaas buu ku yiri ha hooyo waan islaamay waxaan maqlay in Maxamed idin amrayo inaad waalidkiin baar u noqotaan markaas buu yiri haa hooyo markaas bay ku tiri hadaba waxaan ahay hooyada ay adeec waxaan kugu amrayaa inaad ku kufritid Maxamed markaas buu yiri yaa umma wallahi arinku saas ma ahan aad been isugu dayday inay ka noqosiiso laakiin waa ka diiday dalabkeeda markaas bay tiri wallahi in aanan waxna cunaynin waxna aanan cabaynin illa aad ka noqoto diintaada markaas bay lagu oran doonaa waa qaatilkii markaan dhintana waan dhiman doonaa marka waxna cunin way waxna cad waan dhiman doonaa markaas lagu oran doonaa waa midkii hooyadii dilay kadib waxa la maray oo soo wareegtay maalmo aysan hooyadiis waxna cunin waxna cabayn markaas baa jirkeedii daciifay awoodeediina zooshay waxaana la hadlay wiilkeedii Umar hooyo wax cun iskuna day inuu wax cunsiyo markuu isku day inuu wax cunsiyo ayay ku tiri waxaan u baahanahay inaad igu yeedho Sacad si uu xaaladayda waarko markuu xaaladayda arkana uu noqdo diintiisa markaas baa Umar u yeeray waalidiin qaraabadiisa iyo Sacad markaas baa hooyadiis u yeeray markaas baa Sacad imaaday maralaali markuu macad imaaday Sacad madaxeeda ayuu fariistay markaas buu aad u fiiriyay oo isha aad uga buuxsaday wajigeeda haddana u soo dhawaaday wajigeeda ilaa qaraabadiisa ay u maleeyeenba inuu diinta Sacad ka noqon doono markuu u soo dhawaaday waxa uu ku yiri wallahi baan ku dhaartay hooyo waad ogtahay haddii xataa aad lahaan lahayd 100 naf oo 100 naf ay mid kaaga baxayso inaanan marnaba ka noqonaynin diinta uu leeyimid Maxamed calayhi salaatu wasalaam markaas buu ku yiri cuntada cun ama ha cunin anigu ma ka laabanay diintaas isla markiina wuxuu u noqday macalinkiisii sallallahu alayhi wasallam inta uusan hadlin nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa inta uusan Sacad hadlin ayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam ku yiri Sacado adiga iyo hooyada xalkiina iga waran oo maxaa idin dhaxmaray markaas uu Sacad inta uusan hadlin Ilaahay rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam waxa Ilaahay kugu soo dejiyay Sacadow ayad Quraana oo la akhrin doono ilaa maalinka yawm al-qiyaamah